haweenaydu waa laga yaabaa xoogaho inay yara kulkulushahayo amaba karti darri iyo waxyaalaha iska qabto. marka haddii aad nacdo u samir horta. samirkaa ka gadaal waxaan aad nacaysid ilaahay wuxuu kaa siinaya dahab buu kaa siinaya, wiilal qiimo badan, gabdho qiimo badan. ninka aan xaaska lahayn maaragtay keligiisa bachelaaga ah ma xasilna. naag walboo meesha soo maraysa alla tan ya taada ka dhigo isdhihi, laakiin maalintii lagu daro alla wuxuu leeyahy litaskunuu ilayha, waad ku xasilaysaan gabdhahaas. waxyaalaha dulmiga waxaa ka mid ah in la qalbajibiyo. maxaa tahay horta islaan xuna araajo oo aan faa'iido lahayn, ilmahana wallahi maaragtay ilmahan iyo walaalka iyo dadkan madaxoodan kuu qaba ma ahane maba ku qabi lahayn. islaan saa la dhahayo horta goormay niyo kuu yeelani. qaaraanba maaragtay 2 sano 3 sano Nairobi iska joogaan. Mandheera ay naagti joogtaa 1 sano maqan yahay lagu leeyahay, hebel 1 sano iyo bar uu maqan yahay Nairobi daanu joogaa. laga yaaba inuusan xataa telefoon soo diraynin, laga yaaba inuusan biil u soo diraynin. islaantii ay magaalada maaragtay xataa qaar islaamahooda ay dharka dhaqayaan hadda magaalada tuuran. waa dulmi sheekh. waxaa jira ragga qaar naagta markii yara xoogaho murmaano yara isdagaalaanba waa ka guuraa, wuxuu dhihi weligeyda ma furaayo, saasaad u joogi 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano 7 sano 8 sano mana la furaayo mana la qaba, mucallaqa yani waa raariciyey. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إله baa mahadsan subxaanahu watacaala inoo soo hortageliyey fadhigan khayrka badan ee wanaagsan. allah ayaa mahadsan, allahaasaan ku mahadinaynaa. haddii ilaahay raalli uu ka noqdo, sheekadeenna maanta waxay noqon doontaa dulmi badan oo ka dhacaya guryaheenna iyaan maaragtay ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. dulmigaasoo maaragtay ka dhexdhaca labada qof oo isqabta, ninka iyo naagta khaasatan, maadaama jimcihii hore aan ka soo hadalnay dulmiga ay dumarka ku hayaan ragga. maanta ragga kiisaan u galaynaa, dulmiga lagu haya dumarka kuna hayaan raggooda ayaga qaba maaragtay. ilaahi subxaanahu watacaala ummaddan asaga abuuray, rag iyo dumarna isaga isu abuuray, guurkaasuu u sharciyeeyey. islaamkaa xaaraan ahayd waxaa lagu xalaashaday nikaax iyo guur ayaa lagu xalaashaday. marka maadaama guurka hadafka laga leeyahay, marka ilaahi subxaanahu watacaala ayaa ka warramay, waatuu leeyahay wajacala baynakum mawaddatan waraxma. guurka waxaa looga tirigalay naxariis, isjeceel, kalgaceel ayaa looga tirigalay. lagama dhigin guurka mid ku ah cadaab ama ciqaab amaba ah guriga maaragtay guriga zawjiyada ama guriga laysku guursaday ninkii naagta isqaba meel gurigaas inuu noqdo ma ah meel laysku argagixiya. haweeneyda ay argagaxayso, ninkii ay garaacaya ama naagtii ay argagaxay maaragtay ninkii u argagaxaya. haweenkana inay noqdaan maaragtay wax maaragtay shaqaalo ama adoon laleeyahayoo laiska faa'iidaysto inay noqoto lama rabo. rabbi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay bacda acuudu billahi min ashaytaan alrajiim wacaashiruuhuna bilmacruuf. alla wuxuu leeyahay wacaashiruuhuna kula dhaqma bilcaanta aad idinka qabtaan ragow, kula dhaqma bilmacruufi si wanaag ah. bilcaanta waxaa la dhaqanka waxaa wanaag la dhaqan wanaagsan in lagu dhaqno, aflagaada aan lahayn, gacanqaad aan lahayn, ilaahay waa ku runay cabsigelin aan lahayn yaa loo baahan yahay. ilaahay uu nafarayaa wacaashiruuhunna kula dhaqma haweenka aad qabtaan bilmacruufi si wanaag ah, maaragtay wanaagsan oo fiican. alla wuxuu yidhi fain karihtumuuhunna haddaad nacdaan dhinacaad ku nacdaan facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fiihi khayran kathiira. waxaa laga yaabaa nacitaankan aad nacdeen, shay aad nacdeen baa laga yaabaa inuu ilaahay subxaana watacaala khayr badan idin geliyo. xaqiiqahuna way tahay. haweenaydu waa laga yaabaa xoogaho inay yara kulkulushahayo amaba karti darri iyo waxyaalaha iska qabto. marka haddii aad nacdo u samir horta. samirkaa ka gadaal waxaan aad nacaysid ilaahay wuxuu kaa siinaya dahab buu kaa siinaya, wiilal qiimo badan, gabdho qiimo badan yuu rabbi kaa siinaya subxaanahu watacaala. wacasaa an takrahuu shay-an maaragtay wahuwa khayru lakumna ayad kale ahayd. marka fain karihtumuuhunna haweenkii haddaad ku nacdaan qaabdhaqankooda iyo waxooda haddaad nacdaan, facasaa waxaa mudan an takrahuu inaad nacaysaan, waxaa laga yaabaa inaad nacaysaan wax ilaahayna uu geliyey shayga isaga ah khayr fara badan ilahay inuu idin geliyey. ilaahay ma dhihin marka yani khayr buu ilaahay idin geliyey baa layidhi meesha iyada ah. dhaxal waa idinkaa dhaxalkeeda iska leetartaan yeela lama dhihin, caada xun kula dhaqma lama dhihin, cara jeeda a maya. ilahay wuxuu faray bal bilmacruuf. macruufku waa maxay marka? birifqi horta in loo turo. maxaa yeelay waa miskiin, kula xoog ma aha, kula caqli ma aha, kula garaad ma aha, in loo turo ayay rabtaa.
bilraxmati kaman in loo naxariistana way rabtaa haweeneydu waxay rabtaa naxariis ay u baahan tahay waxaa kale u baahan tahay bilcadli cadaalad haddii naga kale lala qabana in cadaalad lagula dhaqmo oon la dulminin iyaduna waa wax loo baahan yahay maarata sida oo kaleeto allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wa min aayaatihi ilaahay calaamooyinka lagu garanaya waxaa ka mid ah weyninkiisa iyo waaxidnimadiisa waxaa lagu aqoonsanayaa an khalaqa lakum inuu rabbi idinka idiin abuuray min anfusikum naftiinna xaggeedana idinka abuuray aswaajan haween haween buu ilahay idiin abuuray haddaad rag tihiin haween buu idiin abuuray waa maxay faa'iidada uu leeyay marka haweenka la abuuray guurkooda haween aad guursanaysaan ood la dhaqmaysaan ilahi wuxuu yidhi litaskunuu ilayha kowdii horta waa lagu xasili haweenku waa xasilooni xaqiiqatan qof aan reer lahayn qof aan bio box lahayn waay meel laga raadimo la garanayaba nin bacala inteed ka raadin inta daad aadid malaha inta daa aadid malaha cidduu joogaa lama dhahay meelahaasuu jiraa iyo cidda barirtiisu jiraa iyo cidda abtigiisu jiraa unbaad maqlaysaa laakiin maalintuu reer yeesho oo guri yagleelo oo islaan dhisto waxaa leeyahay ciddii heblaayo jira hadduu naaga badan leeyahay mise meha gurigiisuu jooga meel hebel uu joogaa marka islaamaha shay lagu xasilo waa calaa sabiili mithaal neef maaragtay geel qaalin geel haddaad geela kasoo dhex bixisidoo keligeed meel ku xirtid ma daaqayso maanto idil waa ololaysa waa qaylinaysa ma taagnaanayso maxaa yeelay bulshadii ay taqaanay kasoo dhex baday ninka aan xaaska lahayn maaragtay keligiisa bacalaga ah ma xasilna naag walba oo meesha soo maraysa alla tan iyo taada ka dhigo isdhihi laakiin maalintii lagu daro alla wuxuu leeyahy litaskunuu ilayha waad ku xasilaysaan gabdhahaas ilahay gabdhehena gabdhaha lagu xasil allah nooga dhige waa arrinta labaad oo ilaahay guurka uu geliyey faa'iidada waxaa ka mid a wajacala baynakum mawadda dhexdiina wuxuu dhigay kalgacayl jeceyl ma aha kalgacayl waxaan ay dhahaan love maarata extreme weliba jeceyl xaddhaaf ah aabba aan loo qabin hooye aan loo qabin ilmo aan loo qabin yaa islaanta loo qabaa waxay guurkaa keenay faa'iidaysa waraxma naxariista sida oo kaleeto ninka ayaa xanuunsanay naagta way ku dul ooynaysaa naagta ayaa xanuunsanay ninka waa ku dul ooynayaa naxariis maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala dadku ku abuuray ayaa maaragtay iska jirta marka arrimahaasoo idil waa arrimo lagu aqoonsanaya allah subxaanahu watacaala weyninkiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanaya dadka fikira un baana garan karaa aayad inay tahay arrintaas marka guurka meesha waxaan ka qaadanay ilaahay subxaanahu watacaala haweenka maaragtay uu abuuray raggana asaga abuuray haweenkana asaga abuuray waana la isu abuurayo haweenna nin la-aan ma joogi karto ninkuna naag la-aan ma joogi karo marka waa la isu baahan yahay marka in la isku asturnaado la is asturo oo la isku dhowrsanaado oo la ismaqlo oo la isu naxariisto oo la isjeclaado ayaa loo baahan yahay jeceylka waa shay jira runtii haddaan jidkiisa laga saarin dad baa u dhintay qabri ugu jira marka jeceylkaas maaragtay ilaahay uu sheegay labada isguursatay dhexdood inuu yaallo kalgacaylka faraha badan la isu qabo naxariistaas ayaa loo baahan yahay haddii intaa la waayo dhib baa ka dhacay meesha iyadahayd hadda guryo badan ma taalo mawadadii kalgacaylkii la sheegay ma taalo guryo la soconaayo oo qayle iyo buuq iyo bikeri laisku tuuraayo oo tarmuush laisku tuuraayo ayaa hadda maaragtay magaalooyinkeena ka batay buuq badan guryaha waxaa loo tirigalay in ninka markuu guri imaado inuu ku nasan karaa naagtana inay nasan karto marka guri haddii maaragtay soo gala naagta ay qaylinayso ninka ay kor ka saaran tahay waryaa telefoonkaada soo dhiibay ku haysatan kan wuxuu leeyahay waryaa telefoonka maadaa soo gatay dharbaxaaba la isu gelinaya marka buuqaas ayada guryaha loogama baahna haweenku waa masaakiin in loo naxariisto ilahay nafaraya subxana wa tacaala naxariistaas ayada way maqan tahay qaar weliba garaac baa loogu sii daraya nugu daraynaa waan garaacayna feeraan ka garaacaynaa dhibaato badanaa ka imaanaya nabigeena calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi khayrukum liahlihi dadka waxaa u khayr badan midka xaaskiisa u khayr badan naag walba ha fiirisa ninkeed nin adig kuu khayr badan ma yahay ummadda asagaa u khayr badan nin adig kuu fiicanoo kuu turo oo kuu naxariisto oo ku jeclo oo ku maarata ku dhaqaaleeya ninka isagaa nin fiican waay hayso xajiso dhaqaalaysa adigana kaas ayaa u fiican buu leeyahay dad baa laga yaabaa markay guryaha joogaan inay maaragtay waraaba libax yihiin banaanka markay soo baxaanna maaragtay nyaanyuray noqon hayaan yani haweenku ka adagyan ka wadaa haweenka unbuu ka adag yahayo tan uu ka adag yahay tan unbuu ku qaylini tan unbuu cayni maanta waa dul taagan yahay iridda markuu ka soo baxana meelahaasuu miskiin ka noqoni lama rabo sidaas qofka ragga waxaa la rabaa ilmihiisi iyo saxaaskiisa markuu imaado inay ku farxayaan oy maaragtay la joogidiisa ammaan ay ku helayaan yani qof maaragtay laabtiisa la geli kara la dugsan kara dhib iyo dheefba asaga la dugsan kara waa inuu noqdo qofka isaga marka adiga isfiiriye hal anta khayrun liahlik adi ehelkaada seed ku tahay nin yahow xaaskaaga seed u tahay
qof naxariis badan ma u tahay qof jecel ma tahay qof maaragtay kalgacel u haaya ma tahay mise dadka kalaad jeceshahay oo bannaanka jooga keli dad kale yaan jeclaani lama dhihin ma sina xaaskaaga jecelkiis iyo saaxiibo kala maya ma sina raggan la hadlayna marka waxaan leenahay waxaa laga yaabaa rag badanoo bannaamaha markay joogaan iyo jidadka markay joogaan waa qoslaan oo waa farxaan oo stress ma laha guriga markay imaadaan maaragtay saaxiibay la fariistaan oo saaxiibadooday la qoslaan oo way faraxsan yihiin thumma yadkhulu beytahu caabusan guriga markuu soo galan waa weji cabuus dulmi waay bannaanka maxaa kaa farxiyey gurigaada markaad imaadayna farxadda inay ku ziyaadaa la rabay maxay nabi wuxuu yidhi naag waxaa la dhahaa midda haddii aad aragto aad ku farxaysid araggeedaadu ku farxiba marka beddelkaad farax iyo maaragtay aad tusi lahayd stress la'aan aad tusi lahayd wejigaad u kuduudi lama hadlaysid telefoonkaad isku mashquulini dhulkaad fiirini dulmi waay ta ayada ah maxaa yeele xaq bay kugu leedahay inaad la sheegaysatid inaad maaragtay ka farxisid xaq bay u leedahay jamiil qaylo la soo geli wari aawatee ciidan joogtay neer rag maxaa loo yiri bababa qaylo on marka qayladaas ragga uma fiicna dumarka yaan lagu dulminin qaylada wax fiican maaha sida oo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ragga u dardaarmay in wuxuu u sheegay ragga una u dardaarmay dumarka in khayr loo dardaarmo walaalaysaan yeel walaalaysaan yeel walaalaysaan yeel ayaa la rabaa annaga laakiin maxaa walaashay ka dhigun baan dhahayna xadiid uu soo warinaya bukhaari ku jiro yaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri ruuxii alla rumaysan maalinta aakhirana rumaysan jiiraankiisa yuusan dhibin buu yidhi nabi sal alay slam ruux aakhira rumaysan alla rumaysan jiiraanka yuusan dhibin jiiraan dhibiddan hadda wayba jirtaayo aan ilaahay ka cabsano jiiraankeena yaanan dhibin wuxuu ku xijiyey nabiga wastawsuu binnisaa'i khayra bilcaantiina khayr u dardaarmo bilcaanta khayr ha loo dardaarmo wanaag ha loo dardaarmo ixtiraam ha loo dardaarmo maaragtay khayr maaragtay wanaag diin iyo cibaadaha loo dardaarmo maxaa dhacay fa inahunna khuliqna min dircin waxaa laga abuuray buu yidhi nabi sal alay slam bilcaanta feeraa laga abuuray wa ina acwaja shayin fi dalci aclaahu feerna waxa ugu qallocsan midda kor u jirto oo taasa aad u qallocsan buu nabi sal alay slam marka bilcaanta marka dabiic ahaan feertaas qallocsanay la mid tahay bilcaan qallooc lagama waynaaye hadalla nooc kale lagama waynaaye sida feertaas ay u qalloocan tahay yay ayadana u qalloocan tahay yuri nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi fain dahabta tuqiimuhu feertaas qalloocsan ayaan toosina haddaad tidhaahdid waadba jebinba feerta allen waa khafiif feerta waa khafiif waa yar tahay qallooceedaas saan haddii aad maarta anaad toosina aad dhahdid bashay dhihi markiiba wain taragtahu haddii aad maarata iska dhaaftid ood maarata toosinta aad ka dhaaftana lam yazil acwajan yani kama zuulahayo inay qallocsanaan feertaas ayada maba toosiysaba qalloocaas ilaah baa ku abuuray waan toosina intaad tidhaahdid ha jebinin qallooceeda ku haysta feerta ayada ah markaasaa nabigu wuxuu yidhi fastawsuu binnisaa'i khayra bilcaanta khayr u dardaarma xadiidka bukhaariyo muslim baa soo wariyey waa xadiis saxiixa marka meesha waxaan ka soo qaadanayna nabiga alayh salatu salaam qofka haweenayda ah sidaad adiga rabtid inay u dhaqanto laazim ma aha maxaa dhacay isku qof maba tihiinba isku garaadna ma tihidiin qallooc in laga abuurayna allah iyo rasuulkiisa inoo sheegahaya marka qalloocaas ayada ee ku hayso waan toosina haddaad tidhaahdid waa dakri waa jebini waa furina imaanaya hadhow marka guri baa burburaya intuu guriga burburi lahaa marka dulqaad iyo samir yeelo ilaahay subxaanahu watacaala saas daraaddeedaaba maarata hoggaanka lagugu dhiibay samirkaas ayaana lagu wadaa waana ogsoonnahay guryahan hadda dhisan oo annaga aan joogno samir unbaa lagu joogaa maahane ruux nabad ku joog waa iska yaryahay xaqiiqadii markii la sheega 2 beri 3 beri iyo usbuuc haddii nabad lagu wada joogo maalinta dambe gafuurka unbaa la isu taagi laakiin mise hooyada dulqaad badan mise aabbaha dulqaad badan dulqaadkaas allahna wada siiye dulqaadka aan ku dadaalno samirka aan ku dadaalno dulmiga bilcaanta lugaha waxaa ka mid ah garaaca ka mid ah nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam laa tadribu imaa allah addoomaha ilahay yaan la garaacin buu yidhi nabigu sal alla alay wasalam xadiid buu sidaa ku yidhi wa qaala wuxuu yidhi istawsu binnisaa'i khayra waa soo noqday xadiidkan isaga ah haweenka khayr u dardaarma haweenka khayr u dardaarma wuxuu yidhi addoomaha ilaahay yaan la garaacin addoomaha ilahay waa bilcaanta marka garaaca dhibaato u geysanaya maya waataan soo sheegnay garaaca maartay la ogol yahay waa jira qofka haddii la wacdiyo oo laga hijroodo oo la waaniyo waanid waxba anfaci waayaan mararka qaar in xoogaho maartay saa la canaanto way ku jirtaa laakiin in wejiga laga garaaca in maartay dhaawac loo geysto maya lama ogola
nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay isagoo taagan meesha ma xajatulwidaac isagoo taagan bannaankii carafa yaa wuxuu yidhi fattaqu llaha fi nnisaa war haweenka ilaahay uga cabsada haweenka ilaahay uga cabsada fa inahunna cindakum amaana ammaanay idinku yihiin buu yidhi allahu akbar bal fiiri ragow haweenka ilaahay uga cabsadaa la yidhi maxaa yeelay haweenku waxay agtiinna ku yihiin ammaano ilaah baa nugu ammaanaystay waalidkii baa nugu ammaanaystay nikaaxaas ayaan ku milkinay oo aan ku banaysanay jirkeeda marka qofkaas isaga in maadaama ammaano ay tahay ammaano waa la dhowraa runtii ammaano lama dayaco laguma ciyaaro ka soo qaad gabar walaasha ah nin inuu ku ciyaaro ma rabtid nin yaho adigana gabar kale oo muslin ah ha ku ciyaarin mogtahay booskaaga qofka ka soo qaad walaashaaba in lagu ciyaaro ma rabtid nin walaashiis in la feeraha laga garaaca rabo ma laha adigana gabadhan walaalay qabtaa waalidaa dhalay ha ku ciyaarin marka ixtiraamkaadii aad u baahan tahay in walaasha la wanaajiyo haddaad rabtid adigana qofkan walaashiisa wanaaji wanaag aan kula dhaqanno marka nabigeena alayhi salatu wasalam xadiidkaas runtii war weyn ayaa ku jira fattaqu llaha fi nnisaa war haweenka ilaahay ugu baqa fa inahunna cindakum amaana alla agti maaragtay ammaanay idinku yihiino ammaanadaas ilaaliya marka waxaan leenahay waatee ammaanada ammaano la iska garaacayo oo la hadlaynaya iligta laga ridaya daqar laga jeexaya dhiiggeeda qulqulaya waa jirta ilahay hanoo dhaafee arrimahaas way dhacaan arrimahaas aad bay u dhacaan ragga haddaan nahay waa inaan ka waantoogna ilahay aan ugu tooba keennaa cafisna waa inaan ka dalabnaa haweenka iyaga maarata aan dhibaatada u geysanay waxyaalaha maaragtay dulmiga lagu haya waxaa ka mid a ihaanada ka mid a in la dulaysto hore meesh maxaad ka tahay naag xunoo lasoo guursadaa tahay ya saddexa ku keentay meeshan warya saddexa ku keentay saddexa looga hanjabi in la dulaysto maya war gabar karaamo leh way gabadhan waa gabar muslimad ah rabbi karaamo uu siiyey ina karaamo beel aad ku ridid ilmaheeda hortooda aad ku caysid aad aflagaadayso ood ka soo qaadid jaariyad adiga kuu shaqayso maya abaalkeeda ma aha sidaa oo kaleeto ammaano agtaadii ay ku gaajoonin ciddooda adaa ka soo waday soo ma agtaadii aa ku gaajoonin markii qabiltu nikaax ahaa qabiltu ayaan leen annaga maharaha qabiltu wax walba qabiltu aan dhahaynaa inay agtaada ku gaajooto lama ogolo wixii adiga awooddaada waxaa laga yaaba rag fara badan oo taajiriin ah yaa naagahooda maanta gaajo u dhammaanhayaan amaba sidii la rabay aan wax u siinaynin oy ka cabaadaan bakiilnimo daraadood marka nin bakiilayna reer maba dhaqi karaba aan iska ilaalina bakiilnimada waxyaalaha dulmiga waxaa ka mid a in la qalbajibiyo maxaa tahay horta islaan xuno araajo oo aan faa'iido lahayn ilmahana wallahi maarata ilmahan iyo walaalka iyo dadkan madaxoodan kuu qaba ma ahane maba ku qabi lahayn islaan saa la dhahayo horta goormay niyo kuu yeelani goormay kuu soo xaragooni maxaa yeelay niijab iyo moraal dilaacaad ku riday in lagu rido haweenka in moraal dilaac lagu rido waa dulmigaas aan ka joojina gabdhaha muslimiinta iyo mu'miniinta waxaan leenahay waan ogaano dulmiga ma aha dulmi ma aamusa sidiisaba dulmi aad haween miskiin ah ka geysatay ma aamusnaan doono mar xaqa maxay dhahaan feeruhu ka dilaacay xaq mar unbuu dilaaci doonaa gabadhan ha kuu sabarto samirkeeda ku dili doona iska ilaali wallahi alcadiim idinka bal u fiirsada dad awowyaashaanadii koowaad ama labaad xaasaskii ay qabeen hadda nool ayeeyi 90 jir ah 100 jir ah maanta waa la heli laakiin nin waayeelo 100 sano jira hal haddii laba lama dhahay waa yaryihin aad bay u yaryihin ragga marka samiray ku joogaana la leeyahay samiray ku joogaan dulqaadka iyo ayagoo gaajaysan yay raashinka kuu dhaafiyaan ayagoo dhib qabo xanuunsan ayay jikada kuu galaan ayagoo xaamilo oo 9 bilood joogaan ayay dharka kuu dhaqaan sariirta kuu goglaan adeerow intaas ka badan nicmadaas maan aragno nicmo looma male laakiin maalintii aad furtid Soomaaliya waxay tiraahdaa nin naag furay waxaa la yidhi fadhi uma yaallo tii la furayna falkeeday ku noqotay marka calalahaada soo aruursaa ka dhici meesha iska ilaaliya gabdhaha aan la dulminin dulmi ma raago nin dhaalimana ma raago dulmiga waa laga gudi doonaa haddii adduunka looga gudin dhibaatooyinka adduunku ku mari doonaa hadduusan ku marinna qiyaamaha laga goyn doonaa maxaa yeelay rabbi subxaanahu wa tacaala mid hurdaya ma aha dulmiga qarsoon ilinta habeenkii ka qulqulayso ay isqarinayso ilaahay baa u jeeda subxaanahu wa tacaala murugyada ay ku seexato ilaah baa u jeeda subxaanahu wa tacaala ilaahay hana cafiya haddaan ragnahay dhibaato badan dumarka waa ku haynaa middan la dulminaya oo haweenayda miskiinta ah xoog aan qabin saddexa ku keentay laleeyahay waa kaa xoog badana ragaan ah laleeyahay anaa mas-uulka ah laleeyahay aan ogaano ragow inay leedahay rabbi maqlaaya maaragtay cabaadkeeda ama murugaheeda ama dacwadeeda ay u sheeganayso war hadday weysaysato gacmaha kor u taagto ilaahu ninkaan asaan yeelan ilaahu iga qaba ay ku tiraahdo wallahi ilaahay waa ku qabana maxaa yeelay nabigeena alayhi salatu wasallam wuxuu yidhi inna allaha la yumli lidhaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflit ilaahay dhaalimku waa u kaadiyaa
markuu isdhigto unbaa maalin dhab la siini. marka dulmiga wax wanaagsan ma aha. xadiid ayaana ku soo arooray oo aan soo wadnaa insha allahu tacaala. marka haddii ilinteeda adiga maaragtay keli aad arkaysid, hooyadeed ay arkay, aabaheed ay arkaynin, ilaah baa u jeeday, ogow, ilaahay kama qarsoona gabadhaas ayada eh, wuuna og yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha laabteeda huriyey oo dhibaato ah aan ku hayno, ilaahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala. nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ittaqi dacwata almadluum, ka cabsadaa la yidhi qofka la dulmiyey habaarkiisa iska jira, fa innahaa, habaarkaas qofka uu habaartamaaya, laysa baynaha wa bayna allahi xijaab, habaarkaas iyo ilaahay wax xijaab oo u dhexeeya ma laha, wax derbi oo u dhexeeya ma laha, direct habaarkaas ilaahay buu aadi, dacwadaas ilaahay way gaaraysaa, ilaahayna wuu soo celin doonaa, qofkii cuquubadaas geystayna waa laga gudi doonaa. maaragtay dacwatun takhruju min qalbin maksuur, gabar miskiin ah, moral dilaac lagu riday, qalbiga laga dilay, la bahdilay, la dulleeyey, habaar ka soo baxay, dhulka ma dhacaya wallahi, dhulka samadaha u dildilaaci doona, carshiga ayay gaaraya. maaragtay warkaa isaga ah, erjigaas ama maaragtay dacwadaas ishtakada ay geysanayso, carshiga ayuu gaaraya. markaasay ku soo noqoni kii dhibaatada geystay, masaa'ib, balaaye aan ka bixinin, xoolihii baa ka kala, ilmihii baa ka kala halaabi, ciriiri buu geli, asagaaba khatar galaya markii dambe. meeqa rag ah aad u fara badan laga xaaraanteeyey arsaaqdii wanaagsaneed laga xaaraanteeyey, sabab maaragtay naag uu dulmiyey daraaddeed yaa arsaaqdii ciriiri ay ugu gashay, maaragtay xooluu qabay, xoolihii ay ka kala yaaceen, naagtaaba habaarays, waxna sii maanta waxba mahay, dukaanka waa buuxa, dukaanu fadhiya, wax mahay u dhihi, wax mahaydee dhab looga dhigay, marka waa la tirtirayba. meeqa guri oo ayaa baaba'ay, una baaba'ay ad adeeg daraaddeed. waree ma anoon inaad saa idhihi, waree ma anaad saad ila hadlaysaa, waree ciddiina maxaa inta lagu keenay, ciddiina maxaan kaaga soo waday haddaad maarsaan isaan yeelaynin. ad adeeggaas kuma fiicna haweenayda, maxaa yeelay adigana gabaraad dhashay, gabarna way kula dhalatay, la soco, qofku waa kula mid, waa bani aadin adig kula mid ah. ragnimada dheeraaw sax, ninnimada dheeraaw sax, laakiin ma aha addoon adi aad soo gadatay oo ad guumaysanaysid, ma aha, guumaysi lama ogola. meeqaa ilmo yaryaro aabbi iyo hooye markay isfahmi waayeen, dulunkaas daraaddiis iyo dhibaatadaa la isu geysanaya daraaddeed, hooyadood la furay oo dayacsan oo rafaadsan, ku soo koray qalbi jab. runtii cunug yaroo maaragtay 2 jir ah, aabbo waayey, hooye maaragtay ku rafaadsan. annaga haddana waxaa dhibaatadan hayso waxaa waye soomaalida, naagta haddii 2 ilmo 3 ilmo dhasho oo la furo, ayadii ilmahaba waa la isla furi, ilmihii wax siinaya ma laha, naagtii wax siinaya ma laha, waa taas ayadaa shuba ee jidka fadhiso rafaadsanta meesha u dilayso. waa dulmi, runtii dulmi waay. ilmahan adaa ka dhalay, biilkooda aduu waajib kugu yahay. meeqaa maanta children department taagan, meeqa qaadiga taagan oo dacwoonaya, waxaasoo idil waxaa keenaya jaahilnimo iyo dulmi jeceyl ayaa keenaysa. arrimahaas waa inaan iska ilaalin haddaan nahay dad muslimiin ah. dulmiga la sheegaya naag la garaacay keli ma ah, garaacid oo maarata wax lagu dhufta keli ma ah. dulmiga waxaa ka mid ah dulmiga kelima dhaawacaysa qofkan qalbigiisa, waa dulmi. kelimo xun ama caytin ah ama aflagaada ah ama bahdil ah, waa dulmi. ihmaal, naagta oonba la danaynayninba, maanta wax ma cuntay, saliidoo ma qabtaa, cadarkoo ma qabtaa, hebelkoo ma qabtaaba aan la dhehayninoo gadaalba aan loo soo fiirinaynin, wax waaye waa dulmi. in maaragtay laiska iloobo oo maaragtay meelahaasun maaragtay iska fadhiso, maya. bakhiilnimada zaa'idka waa dulmi. bakhiilnimo ilaahay ma jecla. ilahay wuxuu yidhi, waman yuuqa shuxa nafsi fa ulaa'ika hum lmuflixuun. ruuxii laga ilaaliya naftiisa bakhiilnimadeeda waa dadka liibaanay buu yidhi, ka isaga dadka liibaanay buu ku jira. marka ilmahaada iyo xaaskaaga inaad bakhiil ku noqotid, waxay cilmahaada cuneen khasaaro maaha, xaaskaada waxay ku cuntay khasaaro maaha. marka ku xisaabtan bakhiilnimada, ehelka laga bakhiilo, waalidka laga bakhiilo, xaaska laga bakhiilo, ilmaha laga bakhiilo ma fiicno. sidaa oo kaleeto rag baa islaamo qaba, way ka hijiroonayaan, meelahaasaa la iska aadi oo islaanta maaragtay xataa intii laga hijiroodo, qaaraanba maaragtay 2 sano 3 sano Nairobi iska joogaan. mandheer ay naagti joogtaa, 1 sano uu maqan yahay lagu leeyahay, hebel 1 sano iyo bar uu maqan yahay, Nairobi daanu joogaa. laga yaaba inuusan xataa telefoon soo diraynin, laga yaaba inuusan biil u soo diraynin. islaantii ay magaalada maaragtay xataa qaar islaamahooda ay dharka dhaqayaan hadda magaalada tuuran. waa dulmi sheekh. qofka adaa ciddooda ka soo waday inaad meel cidla ugu dhaqaaqdid ood iska tagtid, maya, abadan lama ogola. xataa raggii jihaadka aadi jiray baa la yidhi 4 bilood ka badan ma maqnaan kartaan baa la yidhi. ciidankii cumar bin khadaab maarata uu mas-uulka ka amiirulmuminiin cumar bin khadaab gabadhiisu weydiiyey 4 bilood kadib
waa ina ninka uu maarata ehelkiisa usoo noqda, xaaskiisa usoo noqda. islaantan wax badan ay u baahan tahay, gogashaas way u baahan tahay, biil bay u baahan tahay, ka warqabay u baahan tahay, baxnaanin iyo caafimaad ay u baahan tahay, wehel ay u baahan tahay. adi banaankan ugu dhaqaaqday 1 sano iyo maarata bara 2 sano ayaad Nairobidan ku raaxaysanaysaa, ama meelaha dhow aad joogjoogtahay duurka xoolaha la jira aad leedahay, islaantiin intay ku rafaadsan tahay lama ogola. wixii khalad ah oo dhaca maxaa yaa mas'uulka ah, adigu mas'uuliyadaas adaa qaaday maarata. waxyaalaha annaga ragga haddaan nahay dulmi aan ku subin waxaa ka mid ah, islaamo badan ayaan guursanaynaa, bahweyntii waa laga guuriyey. dulmigay ka mid tahay. cadaalad in la suubiya la rabaa, gogasha cadaalad loo suubiyo, warka cadaalad loo suubiyo, ilaahay waa ku reyn gacanta hadda cadaalad loo suubiyo dhinac walba. haddaad cadaalad suubin karin xabadda iska agjoog buu yidhi. ilaahay wuxuu yidhi fain khiftum anlaa tacdilu fawaaxida, haddii aadan cadaalad suubin karin xabadoo iska qabaa la yidhi. xabadaan un saad is yeeshaanba xabadaan iska ag fadhi. dadka qaar aan maxabadu xataa hayn karinba qaabkay u dhaqmayaan iyo qaab dhaqankood markaad fiirisid. marka dadka xaasaska leh, xaasas 2 iyo 3 iyo 4 qaba, ayagana cadaaladaas al raba. hadday cadaalad aad suubin waysid qiyaamo wax baa dhici doona. xadiisaha soo socda aan maarta arki doonaa. waxyaalaha dumarka lagu cadaadiyo waxaa ka mid ah maanta furiin in looga argoosto. furiin naag la fur argoosi maaha, nin nacas unbaa argoosi ka dhiga. in looga hanjabo wallahi waa kufura. haddii kale wallahi islaamaha qaarna waa kufura haddii la yidhaahdo ciddooda inay ku noqotaa ceeb le say baari u tahay. ilaahay ha barakeeyo. marka inaad tirahdo waan kufura, haddaad maarta wallahi madaxadan ku sina, adeer ha uga hanjabin. ilaahay kuwa maartay nacasa yaa maartay gacanta loo geliya dalaaq marka horeba. marka inuu maartay markii la soo hadla waa kufura saasay ku furmiba. marka iska ilaali. furiin wax lagu kaftama ma aha, wax qof looga hanjabaado lagu handadana ma aha. dumarka waan kufurayaan lagu handadin, handadaadaas sax ma aha. sharciga islaamka alla wuxuu yidhi fiiri, fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan. naagta si wanaagsan naagaha si u haysta, xaasaskiina si wanaagsan u haysta, si wanaagsan u dhaqaalaysta. mise ma ahee maartay geeya layidhi si wanaagsan u fasaxa, si ixsaan iyo samafal ku jirto, sogootin iyo maartay ku jirto yaa laga rabaa. annaga Soomaali baa nahay, markii naagta la furaayaba horta colaam ku kala tegayna, iyadoo maartay naagta alaabta laga reebtay, xataa diracyaasha qaar laga reebtay. ragga qaar oo midgaan xataa dhama oo doqomo ah, diinna aan gelaynin. war naag waxeed iska sii, haddaadba furaysid ilahay wuxuu yidhi hala sogootiyu yidhi. bal waxay bisho cuni lahayd, waxay wax ku gadan lahayd, xoogaho shilimaad gacanta u geli, ayadoo faraxsan ciddooda geey. len waqtigaab iska dhammaan kara mararka qaar, laakiin bakeeriga ka reeba, tarmuushka ka reeba, sariirtii ka reeba. ilaahay amarkiis 2 curugna waa wata, ilmahaad ma dhulkaa la seexina. marka ragga qaar ilaahay subxaana wa tacala uma xaaladooda garanaya. haweeney adiga aad guursatay wixii aad siisay ha ka qaadanin oo sii, miskiin waay, waa shaqaysanaysa adiga. marka ama waxaa la yidhahdaa ama guur wanaagsan ama geyn wanaagsan baa la yidhahdaa. ama si wanaagsan ciddooda ugu sin, amaba si wanaagsan ciddoo ku hayso. cid maarata ha dulaynin, hana handadin. waan ka argoosani ha dhihin. waxaa jira ragga qaar naagta markii yara xoogaho murmaano yara isdagaalaanba waa ka guuraa, wuxuu dhihi weligeyda ma furaay, saasaad u joogi 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano 7 sano 8 sano mana la furaay mana la qaba. mucallaqa yani waa raariciyey, mana qaba oo ma biilo. naag la qabo oo la biilaayo oo karaamo leh ma aha. naag la furay oo maartay garoobaana ma aha. waa raariciyaan, lama ogola. taas dulmi weyn oo ragga ay subiyaan weeye. alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, walaa tumsikuuhuna diraaran litactaduu. naagaha maartay ha u haysanina inaad dhib iyo cadaadin daraaddeed ha u haysanina. hadday ku anfici weyso oo dhibkiina uu ziyaado, tartiib aayarko u fur, waqti wanaagsanna fur, si wanaagsanna u fur, gacanta wax u geli oo sogooti yay gadaal kuu soo fiirinin. inaad ku xadgudubtaan daraaddeed bilcaanta iyaan loo haysanin baa la yidhi. waman yafcal daalika, ruuxii sidaa yeela soo maaha, faqad dalama nafsah, naftiisuu dulmiye. marka dulunkaas nafteenna aan ka ilaalino. bilcaantu waa miskiine. haddaadba kolley furiin xal ma aha, waa xal kama dambays ah. xalka kama dambayska haddii la soo gaaro, jid wanaagsan u mar. allah aayaddii hadday tacadudka oo kale alla wuxuu yidhi fain khiftum anlaa tacdil, waaba soo sheegnay. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man kaanat lahu imra'ataani, ninkii 2 xaas qaba ama 3 iyo ka badan qaba, famaala ilaa ixdaahumaa, midoodii u iisha, ilaa ixdaahunna u iisha, labadaad naagood uu qaba midoon u iisha oo midoo maarata 5 habeen 6 habeen la iska agbari, tanna wiigiiba habeenkoo lasoo mara. ma aragtay jaa yowma alqiyaamati wa shiquhu maa'il, qiyaamo waa imaana asagoo dhinaco u buusana layidhi, dhinaco u gudma, dhinacaan u jiifana maarti, dhinacii asaga u jiifay xaggeeda u jiifani. marka
weliba adoo calan kuu suran yahayo banaankii maxsharka baniaadinka isugu imaanayeen adoo dhinaca qoloocsan imaanay dadkana way garanayaan qof walba oo qiyaamo dhinaca u qoloocsan waa nin naag soo dulmiyaa la dhihi marka ilaahay subxaanahu watacaala dulunka hanaga qabtee arrintaas ayada waa arrin aad u xun dadka xaasaska badan leh cadaalad aan ku dadaalno intii karaankaaga ah qalbiga adi ma kontroli kartid laakiin gacanta iyo gogosha iyo la waranka iyo joogidda waa inaad sintaa dhaqanka maanta hadda aan maarata agteena yaalan hadde waad u jeedaan islaamo laga haajiray oo iska uun maartay 5 dhal iyo 6 dhal markay soo gaartaba midoo yaraa la iska qabsana midda yaraa la iska agfarisana khalaas duqdii waaba laga tegayba bilcan waa bilcan inay ayada fasax ku siiso oo xagga halkoo habeen 5 habeen soo bari intan habeen ku bari hadday ayada fasax ku siiso oo habeenkaygii heblayan sii hadday ku dhaada haa laakiin maanta ayaga maartay wax warsanaya ma lahaba ragga qaar waxay daliishanayaan caado dhaqan anaga saan weliga anaga ma soo arki jirine war dhaqanka caadada ah maartay maya wixii xilligii islaamaha la guumaysan jiray waa laga soo tegey xilli hadda diin iyo khayr lagu dhaqmayo ayaa la jooga bilcamuhu waa walaalaha waa gabdho annaga nala dhashay aan ka dhalahayna inaan u naxariisana ayaa la doonaya maartay ilahi wuxuu leeyahay wain tutiicu akthara man fi lardi yudiluuk bani aadin iyo caado iyo dhaqan hore haddii la raaca islaamihii maartay la jeedalan jiray ama guruma lagu garaaci jiray xilligooda hadda lama joogo iska ilaali wixiiba qur-aanka khaalifsan waa baatil wax walba oo qur-aanka ilaahay dabamarsan ama sunnada rasuulka dabamarsan waa baatil hala iska ilaaliyo ninkii baraka rabow qofka raggaan la hadlaynaa baraka haddaad ka rabtid gurigaaga arsaaqdaada baraka haddaad rabtid farxam zawjatak naagtaad u naxariiso baraka ma rabtaa ilaahay xoolahaad inuu kuu barakeeyo waqtigaada kuu barakeeyo caafimaadkaada ilahay kuu barakeeyo ma rabtaa islaantaada u naxariiso ma doonaysaa xasilooni qalbiga ah qalbigaada inuu kuu xasilo oo degto ma rabtaa cadaalad u suubi ma rabtaa inaad sacaado iyo nolol wanaagsan aad ku noolaatid ma rabtaa wanaag iyo ixsaan u suubi xaaskaaga diinta ma aha dhar diinta dhar ma aha yani qamiisaan xirana ama jilbaabaan qaadana diinta maaha diintu waa ku dhaqan waa akhlaaqda wey akhlaaqda lagu maamulo guriga diin ayaa loo baahan yahay toosni qaab dhaqanka aad dadka kula dhaqmaysid ama xaaska kula dhaqmaysid ama ilmaha kula dhaqmaysid marka nimanka waxaan leenahay bani aadinka waa gefaha shalay haddaad soo giftay ood ku xadgudubtay shalay haddaan ku xadgudubnay maanta aan u cudur daaranno nin maanta inta imaada dhahaya boole anaa kaa gardaran xaaskiis ku dhahay rag mala rag mogtahay madax ma soo dhiibtaba sidiisaba waxaa u malaynaya naagtan asaga qaba boole hadduu dhaho in ragnimadii maartay hoos u dhacday ma aha derajo kaama go'ayso sheekh derajaa kuu ziyaadi khalad haddaad gasho khaladkaada qiro walaalay anaa khaldana raalli ahaw dheh xataa adoonba khaldaneen raalli ahaw ku dheh haween intaas umay rabta haweenka jid wanaagsan laakiin annaga xogaho naagsay raalli ahaw loo dhahan leena naagsay loo dhaha raalli ahaw waaba naage allahu akbar looma baahna saas in loo cudur daarto daciifnimada daraaddeed in la cudur daarto oo raalli ahaw la yidhaahdo daciifnimo ma keenayso waa sharafay keenaysaa inaad cudur daaratid niyow saan isaan ayaa jira maartay abaay saan isaan ayaa jirtee anaa khaldane raalli ahaw maxay ku yeelaysaa gabadhaas way farxi wallahi adigana derajaa kuu ziyaadi aabba maartay jilacsan oo xaaskiisa u roonaad noqonin u nugulaad noqoni haddii khalad uu kaa soo baxay hadda ka hor ama dulmi uu kaa soo baxay ilaahay u tawba keen maanta adiga khaladka isaga ah ilaahu adaan kaaga tawba keene maarta iyo dhaaf dheh iyadana cafis ka dalab ruuxaan khaldamaynin ma laha ruuxaan khaldamaynin ragga waa khaldama bilcaanta waa khaldamaan culimada waa khaldamaan caamadana waa khaldamaan marka aan maartay isu tanaasulno tanaasul waa inuu imaadaa laakiin haddii maartay nin walba meeshaana saanan dhahay anigana saanan dhahay soomaaliya waxay tiri haddaan la kala roonaanin roob maba da'een baa la yidhahda mogtahay marka qofka ragga maadaama qawaamo ilaahay gacanta u geliyey mas-uuliyadda ilahay gacanta u geliyey inuu roonaado oo daa'iman asaga raalli hawda asaga uu badiyo yaa aad u wanaagsan saas ayaa aad u wanaagsan saasaa dulmigana uu ku dhammaan karaa marka dulmi iyo khalad haddii la gala ilahay subxaanahu watacala xaggiis in loo tawba keena allana qof walba oo tawba keena tawbada waa ka aqbala yani intay qoraxda ka soo bixin qorax u dhac iyo intay nafta kalxamaha kuu soo gelin sakaraad aad soo noqonin ka hor haddaad tawba keentid albaabka tawbada waa furan yahay dulmi lama aqbalayo marna bilcaanta guryaha joogta yaan kalima u lehay ayadana gabar yahay in lagu dulminayo tirsinaysid amaba lagu dulmiyey horta waxaad qabta rabbi kuu jeeda ayaad arkaysaa ilaahay waa kuu jeeda ogow adigana waxaad dulminin
islaamaha iyagana waa dhib badan yihiino ninka bedelkii walaalow maxaasaan u yeesha la dhihi lahaa sixir iyo balaayo ay la daba taagan yihiin yuundha ay la baangada biyo kulla ay la daba taagan yihiin ayaga naftooda ma yaraystaan inkastoo jimcihii aan wax badan ka hadalnay laakiin haddana haweenka ayaga naftooda ma yaraystaan war waxaa la yidhi ninkaaga dhul u noqo samaduu kuu noqoni haddii adiga maaragtay samirka aad badisid asagaaba isla yaabaa ninka marka midi ku taag reer laguma maamuli karo marka ilaahay waa kuu jeedaa dulmiga isaga ah haddii lagu dulminaya dhab ay tahay alla waa kuu jeedaa allaad u sheeganaysaa allahu yasmacu walaa yansa ilaahay waa maqlaa dhibaatada lagu geysanayo aflagaadada iyo cayd ilaahay waa maqlaa mana halmaami doono meel baa lagu qori adiga waxaan kuu dardaarmaynaa gabar yahay samir guryo badan waxaan ognahay hooyay ku dhisan tahay wallahi alcadiim guryo badan hooyooyinkay ku dhisan yihiin guryo badanna nimankay ku dhisan yihiin mid unbaa samri labadan qof marka samirka haddii ninkaaga haddii samir laga waaye adiga samir ha laga helo intii ilmaha dayacmi lahaayeen intii guriga muslimka burburi lahaa midkiina mid ha samro warniyahow rag buu ilaahay kaa dhigay adigana tanaasul baro qofka inaad u tanaasushid ood maarata iska cafisid ood muruqaada iyo xooggaada aadan ku dayin isku day weliba gabadha waxaan usii dardaarmaynaa alla bari ducada waa muhim ilaahu ninkayga bahri iga dhig dheh ninkan bahri ilahay waa kaaga dhiga sidaad leedahay ilaahu ilmaha bahri iga dhig ninkana inuu ilaahu bahri iga dhig ninkan waa inuu yidhi ilaahu islaantayda bahri iga dhig ducadaas waa inaan ku dadaalna labada dhinacba ilahay waa inaan isu barinaa intaan ishabaari lahayn intaan isdulmin lahayn ilaahay waa inaan isu barinaa dulmiga inuu ilaahay naga qabto ilaahay subxaanahu watacaala uu na hagaajiyo ayaan leenahay marka kelimada aad bay igu dheeratay intaan kusoo gaabinaya insha allahu tacaala